inta wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan kusoo dhawaada barnaamijka Faqreb oo aan kusoo qaadan doono fanaanka qadarkeeyo oo weli ku xiran magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Wararkii maalmahan la isla dhexmariyay ee ahaa in qadarkeeyo xabsiga laga sii daayay oo uu firi yahay ayaan dabagal ku sameynay waxaana inoo soo baxay qadar inuu weli xiran yahay welina uu saxaafadda la hadlin waxyaabaha social media iyo warbixinada la sheegay waxa ugu waaweyn in qadar la sii daayay maalinnimadii talaadada isbuucii la soo dhaafay laakiin warkaasi waxa cadaatay inuusan jirin oo qadar weli ku xiran yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaana qadar lagu haystaa inuu isticmaalay dokumentiyo istamarsan oo si qalad loo isticmaalay waxyaabaha qadar maalmihii ugu dambeeyay shalay waxa la sheegay in qadar uu maxkamadda dalka maray oo ay go'aan ka qaadan doonto maalinta Jimcaha ah haddii qadar uu xabsi ku sii jirayo iyo inta lagu xukumayo iyo haddii qadar la sii deynayo warbixinada ugu dambeeyay waxay sidoo kale sheegayaan in qadar dadaalo badan oo ay Soomaalida halka joogta qaasatan nimanka baarlamaanka ku jira ee gobolka Soomaalidu degta ee ismaamulka Soomaalida ee jigjiga ay dadaalo badan geliyeen in qadar la sii daayo iyagoo weli aan ku guuleysan in qadar xabsiga laga sii daayo dalka Ethiopia waxa u yaala sharcigoodii adag oo ah sharci aad u adag oo aysan ahayn qofku يعني si qaldan dokumento isticmaal si sahlan lagu sii daayo oo Soomaaliya kale aysan ahayn waxaana uu qadar mari doonaa maxkamadda oo markale ka fadhiisan doonto waxa la sheegaya in maxkamadda oo hore u sii maray ay Jimcaha go'aan soo qaadan doonto in qadar xabsiga lagu sii haayo in qadar la sii daayo waxyaabaha kale oo ay maxkamaddu go'aan ka gaari doonto waxa kamid ah dokumentiyada oo qadar isticmaalay in la siis garay karo ama la isticmaali karo ama qadar laga qaadi doono dokumentiyadaas warbixinadaas oo warbixinada ugu dambeeyay aan idin la socodsiin doono haddii Ilaahay idmo waxyaabaha qadar aan يعني aad ugu dhaliilayo waxa kamid ah kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan kusoo dhawaada barnaamijka Faqreb oo aan maanta kusoo qaadan doono wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinadii qadar Ibrahim Keyo fanaanka Soomaaliyeed ee ku xiran magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia warbixinada iyo wararkii ugu dambeeyay isbuucan la isla dhexmariyay oo social media ku jiray waxa ugu waaweyn in qadar xabsiga laga sii daayay walow qadar uu weli wararka ugu dambeeyay sheegayaan in qadar xabsiga uu ku jiro oo aan la sii deynin wararka aan ka helayno dalka Ethiopia caasimadiisa Addis Ababa waxay sheegayaan in qadar uu maxkamadda koowaad maray walina ay u dhiman tahay mar labaad inuu maxkamadda maro walow la sheegayo in maalinta Jimcaha ah waa warka ugu macquulsan in maalinta Jimcaha ah ay maxkamadda go'aan ka gaari doonto in qadar xabsiga lagu sii haayo inta lagu xukumayo in qadar xabsiga uu ka bixi doono wararka dadku isla dhexmarayeen oo ay ahaa in qadar la sii daayay oo magaalada Muqdisho ku soo jeeda ayaan gabi ahaan waxba ka jirin oo ku turkitaan ahaa walow warkaasi aysan jirin qola sax ah oo laga xigtay oo marka horeba proof gareyn kartay in arrinkaasi uu jiro laakiin arrinta kale ee la yaab kale waxay tahay in qadar waxyaabaha lagu haysto ay ka weyn yihiin kaliya dokumentiga oo isticmaalay oo laga rabo qaabka uu dokumentiga ku helay iyo cid u sameeyay taas oo ay dawladdu dabagal ku sameey doonto markaas kadibna qadar go'aan laga gaari doono wararku waxay inta ku darayaan in maxkamadda koowaad ay qadar maray eedeymo badan loo soo jeediyay oo waxyaabo badan qadar ay ka weyn yihiin inta lagu haysto kaliya inuu dokumentiga ku safriyay walow wararkaasi aysan xaqiiq ahayn haddana waxa ay ku tusayaan in kiiska qadar uu sahlanayn sida Soomaalida u sahlanaydina uusan ahayn walow dadka in badan aysan fahamsanin dokumentigada qaldan ee dadku ku safrayaan inay dambi weyn ka tahay adduunyada intiisa kale walow dad badan ay u malayaan in Soomaaliya waxyaabahaasi ay wax sahlan yihiin laakiin ma aha arrin sahlan